Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Magacayga Yaasmiin waaye, kusoo dhawow caafimaad fiican. Waxaan idin wadaa jikada insha Allah. Reexaantan guriga iiga baxdaa, maasha Allah, xoogaa noo jarjar. Reexaan waa isticmaali kartaa. Geedkan waxaa la dhahaa rosemary aan kasaaya. Waxaa isticmaali kartaa kabsar caleen ama basal ama yaanyo, wixii adiga ilaahay ku sahlo oo ku siiye. Waxaa loo baahan yahay geed foornada la geliyo, xoogaa ama olive ama saliid macsaro, waxaa haysatid waa inaa mariso, ama saliid qumbo. Geesaa dhigaysaa. Waxaa ii qasan rooti. Rootigaas cajiinkiisa waa ujeedaa, aadna uma adko, xoogaana wuu jilicsan yahay. Gacmaha waa inaa biyo qabow aad soo geliso kooda hore. Dhibicdaas marka aad u yeesho rootiga, waa kaasaa saas aa loo baahan yahay. Kabacdi waxaa ii taala yaanyo mirooley oon soo jaray, nus aan u soo jaray. Kabsar caleentii ama reexaantii cagaarka ilaahay kuu kase aa ku duubaysaa. Meeshii dulduleeladii aan gacmaha ku soo banana waa gelinaysaa. Aniga waxaan wataa yaanyadeyda, baysalaa la dhahaa, reexaanta iyo rosemary-ga cagaaran aan geesahana ka gelinayaa. Intaas quruxaa laga wadaa, iyo macaan iyo qudaar ahaanta. Waa kaas. Xoogaana waa inaa meeshii dulduleelka aan soo bana waa inaa si fiican aad u sii geliso, sida uu hadhow markaan rootiga u dubno ooga soo dhicin. Fahmaysaa? Wax yaroo inta olive ii taala iyo toona intaan fiiqay aan jarjaray. Aan saliidda wax yariis qandiir ooga dhigay. Cusbo yar hadda korka ooga bitiyey wax yariis. Dhanaanle laga rabaa. Waa dhamaate. Ma jeedaa? Cusbada meel dheer haddii Ilaahay raa. Waa kuu diyaar, laakiin jawaankan yarkaya ii yaalo waa daboolayaa. Xoogaan waxaan rabaa in sidii khamiirka uu u dhexgalo uu xoogaa kor usoo fuulmo, usoo saarmo rootiga. waa ujeedaa. Waxaan kaloo ka halmaamay alifis inaan ku daro. Marka saliidii oo toonta aan ku soo kariyey aan ku shubayaa. Hadhow caraf ee noqonaysaa, ama ramadaan ha ahaato ama ramadaan yee ahaan. Haddii lagu martiqaado waa geyn kartaa. Ramadaanka toonta waa ka dhaafi kartaa, siiba maxay ahayto taraawiix marka la aadayo iyo siisan qofka bini'aadanka u soo shiirin, laakiin toonta waa daabo. waa ujeedaa siduu usoo qurxoonaaday rootigii. waa wax fudud, si alla sidagaa rabtid aa rootiga u qasan kartaa, laakiin dhinaca jileeca aad sii. Marka waxaan kaloo sii saaray alifis saytuun inaan dhahaan jecla haddaanan qaldanayn. Alifisa ani u kasaayaa, aan jarjaraan haddana sii saaray. Wax alla waxaa haysato guriga kuu yaalo ilaahay ku siiye, alxamdulillaah aa kugu filan. Yaanyo hadday ku taalo, yaanyadaas kaliya xataa kugu filan. Inkastoo Soomaaliya reexaan, kabsar caleen ay ka buuxdo. waa kaasaa saas usoo qurxoonaaday. Ujeedada waa qaadaysaa, foornadaan geliyey. Adiga 30 daqiiqaan ku soo haayay, waa ka soo saaray. wuu kulul yahay, wuxuu carfayaa maasha Allah, tabaarakallah. waa yaabaysaa. maraqaa ku cuni kartaa, wax alla waxaa rabtaa ku samaysan kartaa. Aniga turki geed la dhahaayo oo saarax iyo dhinaciisa ka imaadana intaan qabtay aan dhexda ka geliyey hadhoodii. laakiin malaayaa samays haddaa haysatid malaayaa dhexgelin kartaa, hilibaa dhexgelin kartaa, qudaar kuu qasana dhexgelin kartaa, dooro, wax alla wixii adiga aad rabto. hadhow ninkaan qaboobo u qabooba ina tusaaya sidaan u jaraayo insha Allah. laakiin markuu saan yahay uu karkaraayo, fadlan meel iska dhig, kuleelka tartiib ha uga soo dego. mujeedood geesaha dhan kafee, toonti waa ujeedaa, yaanyadii, alifiskii, waxa dhan waxay soo noqotay qurux maasha Allah. ha iska qabooba 1 saac adiga ku haay banaankaas, ha iska yaalo. qabowna ha dhexgelinin, sababta ah geesahaas waa ujeedaa siduu qarjow ooga noqonayo. haddaa qabow finjeeri wax dhexgelisid
واسكو دحدعايا دولش عملو كان قنا كنا وروتي موقتاي bariiska haddii lagu martaqaadaa geen kartaa ilmahaaga u samayn kartaa adiga ruuxaaga cuntadaada geeskaa ku cuni kartaa hadduu maraq kuu yaalo fuud wax alla waxaa rabtaa ku cuni kartaa maasha allah hadda weydiisadna burkaan burcad ma aha einkorn aa la dhahaa aan maxay inta ka sameeyey aniga geesihiisa mujeedada sidoo noqday meeshiisaas ha kaa yaalo si fiican maaragta markuu kuleelka ka soo yaraado adaa arkaysa tartiib uu digsigana ooga soo baxayaa aan ka bixino insha allah istartiibana dhexdayuu kaa jibin alxamdulilah tartiib ooga soo baxay waa sababta saliidda haddaata aan u mariyay galaaska moogtahay foornada inta la gelinin marka wax oo digsi uu ku dhagayninaa loo baahan yahay geesaha dhan qarjow dhexdana jalleeca ku dhahay maasha allah ujeedada siduu kafee uga soo noqda waa wax yaroo rooti oo fudud quruxna aa meesha ku geynaysid haddii family ku imaanayaan aad dhiganaysid ama ramadaan aata ama hay ahaanin waa samaysan kartaa maasha allah fudeed ujeedaa qurux iyo macaan iyo nafaqo ilmaha xataa qudaarta way ku baranayaan marka aad tartiib u dhexgelisid rootiyadan oo kaleeto waxyaalaha dhexdooda ilmaha waxay noqonayaan yaa anina waa raba inaan cuno yaa ay kuleeyahay dhadhaminayaan markaad si fiican u sii qaboobe waa in aan tuso dhexdan ka jaraynaa cad kale nooga sii dhexgooy habka dhinacaan u isticmaalnaa marka ku tusaayaa dhexda kasii jarkan waa kaasaa haddana dhexdaa kasii jaraysaa mujeedaa mindidan iska ilaali ani dhexda markaan geeyo kasoo bixiya mindida asaga lenka furaaya dhag toonaa ka dhacda hadda mujeeda waa waxaan dhahay waa inaad toonta iyo xoog usii dhexgelisid dhexda rootiga waa ujeedaa malaay gasho dooro gasho hilib gasho waxaa jeceshahay wixii ilaahay ku siiyey aan ku xamdinaysaa maasha allah ilaa intaa haysanina sii anakoona siisan ilaaha nagu fidnaynin waana kugu xamdine amiin yaa dhexdan kasoo geliyay aniga turki yaro ii samaysneyd dhag diyaar waay maasha allah tabaarakallah walaalaha la qaybso dariskana la qaybso insha allah haddaa igu cusubtahay fadlan subscribe garayso igana soo booqo channelkeena ingiriiska fitra wellness couple isagana bisha ramadaanka dhan waxbaan soo dhigaa waa kaasa dhinacaasna igala soco fitra wellness couple channelkeena ingiriiska isagana isku soo xir insha allah ilaahay ka togan wax ka faa'iidiin jazaakallah khayr salaamu calaykum walaalaha malabkeena raadinaya waa kanaa Carmel Mall 221 Abay Fatima dukaankeeda aad ka helaysaa Minnesota maasha allah waa 221 second floor Carmel Mall